bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walwaal qodobada ugu door korona waxaa qayb ka ah ururada bulshada rayidka oo war ka soo saaray hadaladii xanafta lahaa ee mucaaradka iyo dowladda federaalk Soomaaliya ay warbaahinta isku mariyeen ninkii loo haystay weerarkii jaamacadda Gaaraysa oo xabsi isku dhex dilay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo la sheegay inuu adeego dalal shisheeye haddaba dalalkaasi waa kuwee waa daawan doontaan Jubbaland oo sheegtay in aysan gudbin doonin gudiyada doorashooyinka oo xilligan uu muran ka taagan yahay kuwii ay magacaabeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo dalka ka cayrisay safiirkii Kenya u fadhiday kii dalkaasi Kenyana u yeertay dowladda Kenya oo si degdeg ah uga hadashay go'aankii lagu eriyay safiirkeedii Soomaaliya u joogay dhawaana war ka soo saari doonta buuxa xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya oo cirka isku sii shareertay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warkeena ee ku soo dhawaada warkaas oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilownay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku cabireen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo xilligan uu muran xooggan uu ka taagan yahay qoraal ururada bulshada rayidka ugu horeyn ayaa waxa walaac looga muujiyay hadallada xanafta leh ee warbaahinta ay isku marinayaan hoggaanka mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii dambe xaaladooda siyaasadeed ay aad u kacsanayd sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay labada dhinac inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac ama qalalaasa siyaasadeed oo dalkan uu ku burburo war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga dalbaday labada dhinac inay ka wada shaqeeyaan doorasho ku dhacda waqtigii loo asteeyay sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa soo jeediyay in ololaha doorashada ee soo socda loo wajaho si ay ku dheehan tahay mas'uuliyadda iyadoona la dhowrayo nabadgelyada dalka ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay arintooda ku soo aadaysaa kadib markii maalmo ay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka ay ku shireen magaalada Muqdisho ayna uga soo horjeesteen gudiyada doorashooyinka ee dowladdu ay magacaawday kuwaas oo dhawaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka ay sheegeen in la bedelo sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay musharaxiintan ayaa waxaa lagu sheegay in doorashada Soomaaliya laga dhigo mid dhexda taala madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah mid wili ku adkeysanaya baaqi ka soo baxay madaxda u taagan xilka madaxtinimada dalka kuwaas oo wili shirar gooniya ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyagoona shirar la yeelanaya madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada sidoo kale waxaa dhawaan la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin ay dhawaan ku kulmi doonaan madaxtooyada kana wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka ee muranka xooggan uu ka taagan yahay wararka hoose ee heshay warbaahinta walwaal ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu la kulmi doono musharaxiinta mucaaradka ee ku shiray magaalada Muqdisho isagoona kala hadli doona gudiyada ay dowladdu u magacaawday in ay maamulaan arrimaha doorashooyinka si kastaba aatee maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaan wili soo magacaabin gudiyadii ku matali lahaa gudiga doorashooyinka Soomaaliya iyadoo Jubbaland ay sheegtay in aysan soo magacaabi doonin gudiyadeeda ilaa iyo inta xal laga gaarayo arinta gobolka Gado iyo sidoo kale khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka si kastaba aatee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa ah kuwa xilligan cirka ku shareeran nin u dhashay dalka Tansaaniya oo loo haystay in uu ku lug lahaa weerarkii sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacad ku taala magaalada Gaaraysa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayna ku dhinteen 148 qof ayaa isku dilay gudaha xabsiga sida laga soo xigtay booliiska iyo maamulka xabsigaasi afarta qof ee lagu eedeeyay weerarka waxaa gudaha jaamacadda ku toogtay ciidamada ammaanka balse
Rashid Carlos iyo laba kale ayaa sanadkii hore lagu xukumay in ay qorsheynayeen weerar argagixiso iyo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Ninkaasi ayaana waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. wargeyska Kenya ka soo baxa ee Standard ayaa shaaciyay in ninkani uu maskaxda ka xanuunsanaa intii uu xabsiga ku jirayna uu la kulmi jiray dhakhaatiir cilmi nafsiga ku takhasusay. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalkaasi Kenya ayaa sheegay in ninkaas uu isku daldalay gudaha xabsiga isaga oo adeegsanaya bustihiisa. Al-Shabaab ayaa sheegay inay dagaal kula jiraan ciidamada Kenya tan iyo markii ciidamadeeda ay galeen Soomaaliya bishii Oktoobar ee 2011 si meesha ay uga saaraan kooxda uu dagaalka kula jirta dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobay ay taageerto. 3 bishii Abriil ee sanadkii 2015 afar nin oo hubeysan ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Gaaraysa iyagoo si aan kala sooc lahayn u tooganayay dadkii halkaasi wax ku baranayay. ragga weerarka geystay ayaa si gaar ah u birtilmaameedsanayay dadka Masiixiyiinta ah kadib markii ay gudaha dhismaha u galeen. ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu dilay 148 qof oo intooda badan ahaayeen arday halkaasi ku sugnaa. wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda kala guurka ee xilligan uu marayo dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in sababta dowladda federaalka ay wadatashi ugu yeertay safiirkeeda u fadhiyay Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyadoo ku amartay safiirkii Kenya ee joogay Muqdisho Lucas inuu dalkiisa wadatashi ugu laabto, taasi ay qayb ka tahay cadaadiska ay Kenya ku hayso Axmed Madoobe. dalka waxaad og tahay in ay gacmo shisheeye ay faraha kula jiraan in la qanciyo. waxaa la xoog badnaatay in la qanciyo dowlado shisheeye iyo dad dana shisheeye leh ayuu yiri. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in cadaalad darro ay ahayd in Axmed Madoobe loo dhiibo in doorashada ka dhacaysa gobolka Gado, isla markaana uu sheegay in hadda ay doonayaan in ay doorasho ku qabtaan gobolka Gado, isagoona sheegay in Axmed Madoobe uu adeego dalal shisheeye. ugu dambeyntii Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku taliyay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka. si kastaba dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Axmed Madoobe ayaa waxa ka dhaxeeya dagaal xoogan kadib markii madaxweynaha maamulkaasi uu dhawaan sheegay in aysan doorasho ka dhacaynin ilaa iyo inta ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin gobolka Gado. waxaana uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya gabi ahaanba laga saaro gobolkaasi Gado, maamulkeedana lagu soo wareejiyo Axmed Madoobe. daawadayaal weli arrimaha Jubbaland ayaynu ku guda jirnaa. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in aysan gudbi doonin gudiyada doorashada ee laga sugayo inta laga fulinayo. ayuu yiri heshiisyadii iyo ballanqaadyadii ay hore u sameysay dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in aysan wili fulin heshiisyadii ahaa in gobolka Gado loo madax banaaneeyo dowlad goboleedka Jubbaland ka hor doorashada, isaga oo sheegay in dowladda dhexe ay damacsan tahay in ay iskeeda u maamulato doorashada la filayo in ay ka dhacdo gobolka Gado. anagu waxaan rabnaa in marka hore gobolka gacanteena lagu soo celiyo. dowladdu iyada ayaa ka baxday heshiisyadii hore aan u gaarnay, mas'uuliyadda arrintaana iyada ayaa qaadaysa ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. waa in dhammaan qalalaadka ka jira dhinaca doorashada la saxa, sida gudiyada hadda dhisan oo qayladhaan badan ka soo yeertay, sida gudiyada gobolada waqooyi oo ay ahayd in loo madax banaaneeyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. muddo dheerba ma fiicneen xiriirkooda tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii Axmed Madoobe oo ay dowladdu ku tilmaantay mid sharci darro, walow markii dambe loo ogolaaday inuu madaxweyne ka noqdo Jubbaland 2 sano ee soo socota. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku amartay in uu dalkiisa ku laabto safiirka dowladda
Kenya u fadhiya Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda ka jooga Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalkeena Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa u muuqata in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe si uu fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiska siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray ayuu yiri xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo war-saxaafadeed ka u akhrinayay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii bilihii ugu dambeeyay ee xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyadoona dowladda Soomaaliya ay hore u joojisay qaadkii ka iman jiray dalka Kenya kaasoo inta badan ay ku noolaayeen dad badan oo Kenyaan ah. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa hore waxay gorgortan u la gashay dowladda Soomaaliya si loogu fasaxo qaadka ka xayiran. Si kastaba ahaatee xaaladda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa hadda mid cirka ku shareeran lamana oga meesha ay ku dambeyn doonto safiiradan ay dowladda Soomaaliya qaarna u yeertay qaarna ay burisay, balse dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay in ay ka jawaabi doonto arrintaasi. Dowladda Kenya ayaana war ka soo saartay go'aankii dowladda Soomaaliya ay dalkeeda uga saartay safiirkii Kenya Lucas oo lagu amray inuu dalkiisa dib ugu laabto. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in Kenya ay si weyn uga xuntahay talaabada Soomaaliya ay dalkeeda uga saartay safiirkii Kenya, isaga oo sheegay in Kenya ay dib u eegis ku sameyn doonto arrintan si xal looga gaaro. Wasiirka ayaa yiri waxaan qaadi doonaa talaabo kasta oo lagu xaqiijinayo wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. sanadihii ugu dambeeyay waxaa xumaa xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo Kenya ay ka joogaan ciidamada qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta walaal xiligan waa naga intaa.